odayaal dhaqameed aqoonyahan dhalinyaro iyo haween ayaa ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka ugaas Ibraahim Aadan Axmed waxaana dadkii madasha ka hadlay ay ugaaska u rajeeyeen inuu xilkiisa u guto si hufan kana shaqeeyo arrimaha dhaqanka ee beesha dooratay iyo guud ahaan beelaha Soomaaliyeed annaga hadin nahay reer dhab waxaan dooranay maanta ugaas Ibraahim Aadan Axmed waaska aan dooranay kii lagu caano maali Allah ka dhigay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtana waxaan u sheegaynaa waaskaas aan dooranay inaan nagu xushmeeyo nolol soo mara ninkii madaxa ahaa nagu soo mar lahay u yahay beeshana waxaan u sheegayaa waaska doorashadiisa waxa ka weyn tixgelintiisa ila shaqeyntiisa in lala shaqeeyo la tixgeliyo waas la doortay والله شقينا فرق اليد وحلي رفاري بحساب فول ما دقم واسكو إن لا شقيا قمون بالله ما بوبا لقرب استاجا وحن ما أنت هل كان أجاز وجود دورني أنا قام كلا صعنين رهب الإفلان أو وحبك صعينين وحن هل كان ما أنت أجاز وجود دورني إبراهيم آدم أحمد ومدة عند حجوجنا صومالي عند حجوجنا يأجرون ملك استاجوا جوجا waxaan u sheegayaa halkan inuu ugaas naga yahay danaheena iyo wax kasta loo soo maraya Ibraahim Aadan Axmed saddexda xara dhagaxley xagar dheer ifo sida annaga maanta aan sameeynay isku duubnida iyo midnimada iyo meel kasta wada jeedsiga meel kasta oo joogtiin inaad sameysaan ad midowdaan kana fulaan aad ka baxdaan maanta waxaan inta iskugu imaanay fadhigaas sharafta leh oo wanaagsan oo ku dooranay ugaaskeena ugaaskaas aan dooranay kiina anfaca oo hor i gadaal noo anfaca laha noogu intaas kadib waa sida loo sheegay ugaaska kaligiis ma shaqeynayo waxaa loo baahan yahay garbo la shaqeeya in loo yeelo iyo taxgelin oo la siiyo asagana ma ahan mid kaligiis san u dooranay nin walba gurigiisa iskaga xaroonay leeyihiin waxaan u baahanahay nin mar walba la garab taagan yahay oo iyo hiil lagu garab taagan yahay anaad oo faraxsanahay annagoo idil shucuurtiina mid la soo koobi kara ma ahan waxaan ku faraxsanahay ogaaska cusub waxaan rajaynayaa inuu noqon doono midkii rajada midkii dhan baahada beesha buuxiya eena guulkeena insha Allah saasaan u rajaynayaa أنا وحنا إلهي أوبرينا إنه إلهي أوفر حلكيسا وكوبوليستو أنا وحنا ربنا إن شاء الله تعالى أنا ولا لينا أن كل رجلينيا إن لجرب استاجو ورمرتير كلاجا صار كلن كوحة كمد إن له جان سمه لا تحجليه وجاسك باشا الجوران وجاس إبراهيم آدم أحمد وحن الله أوبرينا إنه الله أوفر ذايو هوش أذك هو جامينمو دوش لجا صاري allana uu ka dhigo mid si fudud howshiisa ugu soo baxo aan la kulmin wax caqabada iyo wax dhibaato ah waxaan alla sidoo kale ugu baryayaa in Ibraahim uu noqdo midka beesha ay sugaysa in badan ee ay u oomaneed qodobka labaad ee laga soo saaray waxa ka mid ah waxaan baaq u direynaa inagoo isku duuban in ajuuraan meel kasta ee uu dunida uu ka joogo inuu sameesto maamul midkan la mid ah si loo midoobo waxaan sidoo kale ka codsanaynaa dhammaan beesha boqortooyada ajuuraan in ay isku dayaan inay sameystaan hal boqor ee loo hogaansamo warmurtiinta saddexaad annagoo ah ajuuraanka ku dhaqan dhammaan xerooyinka qaxootiga Dhadhaab laga bilaabo maanta in aan akhbari doonin wax uu ugaas Ibraahim Aadan Axmed uusan ka warqabin in xerooyinkan laga sameeyo in mar walba danaha ajuuraan loo soo maro ugaaska beesheena ugaas Ibraahim Aadan Axmed oo hadlay gabagabadii munaasabadda ayaa hadallo mahadcelin dardaaran iyo duco ku soo afmeeray madashii lagu boqoray dalkayda walaas weyn aan ku tashano isaari walaaska asaga Allah ila garab galo walaaska isaari waan waxaan ku qaaday dalkayda kaligay ma qaadi karin walaaska asaga in leela qaado leela daadiyaan rabo isla wada كلي كراهي ويا أنا كراهي وإحنا قبل كلي قربان مباهناي تشيء مباهناي
ninka ku-xigeenka ahayna tolkiina soo bixiyaan rabaa abshirta allahna waafajiyo midnimo iyo muwaafaqa allahna siiyo sharta allah naga qabto khayrka allahna waafajiyo midnimo allahna siiyo muwaafaqa allahna siiyo faraq isdaar muuqal isdaar allah naga koriyo ilaahay idinkiis axmed cabdullaahi jaamac axmed deere maakhir cable TV xeryaha dhadhaab